waxaan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtiin waxaad ku soo dhawaataan falaqeynta warka aad kala socotaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed studiisa magaalada London. barnaamijkana waxaa caawa ila daadihin doona Maxamed Ismaan Bidaar iyo anigoo ah Cabdiraxmaan Yuusuf Daacad. Maxamed ku soo dhaw marka hore barnaamijka. waa maadsantahay daacad aad baan ugu dhawaa barnaamijka falanqeynta warka bal haddii aad noo daafurto qodobada warka ugu door korona caawa waa tahay Maxamed qodobada aan gacanteeda ku haya waxaa kamid ah Soomaali qaxooti ah oo dalkooda ku soo laabanaya iyo wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta mudane Maxamed Aadan Ibrahim oo safar shaqo ku jooga dalka South Korea. xukuumadda Soomaaliya oo qorsheynaysa inay shidaal Soomaaliya ku soo saarto muddo 6 sanadood ah iyo dhanka kale Maxamed waxaad noo hayso watahay daacad aad baad maadsantahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa safar socdaal ku kala bixiyay magaalooyinka Ceelbuur iyo waliba magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan halkaas oo dadweyne aad u tiro badan ay ku soo dhaweeyeen isla markaana uu khudbad kaga jeeday odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan sidoo kale warbixinada caawa warka iyaga dadka inaga qayb qaadan doona wafdi oo kamid ah xildhibaano isugu jira baarlamaanka Soomaaliya iyo waliba agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta gaaray degmada Waajid halkaas oo laga awood roonaad ama laga saaray kooxda al-shabaab oo ka talin jirtay sidoo kale waxaa ku fatahay webiga Shabeelle magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan oo dad badan ay ka barakaceen oo waliina laga cabsi qabo inuu ku sii fataho xaafado kale oo kamid ah gudaha magaalada Beledweyne waliba xaafadaha haatan gacantan ku hayno waa xaafada Xawataaka iyo waliba xaafada Howlwadaag oo ka tirsan magaaladaasi waa tahay Maxamed aad buu u mahadsan yahay daawadayaal qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idinkugu heynaa barnaamijkeena aad aalaaba kala socotaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed studiisa magaalada London dadweynahan waxay naga soo wici karaan telefoonka hortooda ka muuqda iyagoo fikirkooda nagala qayb qaadan doono qadka telefoonka waxaanu jecelnahay daawadayaashan inay waqtiga ay noo soo koobaan si daawadayaal badan aan ugu faa'iideysano bal qodobka ugu horeeya aad isleedahay Maxamed caawa uu dhiirigelinayaa daawadayaasheena aan ku hormareyno runtii daacad qodobada runtii caawa aad ay u farax gelinayaan dadka ina daawanaya ee caalamkooda idin naga daawanaya balse qodobka runtii aan isleena caawa gugundhaxad ayuu noqonayaa falanqeynta warka waa qodobka ku saabsan madaxweynaha Soomaaliya ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa socdaalo ku kala bixiyay degmada Beledweyne waliba degmada Ceelbuur haddii aan soo koob warbixintaasi dadka deegaanadaasi jooga runtii si aad ay u soo dhaweeyeen madaxweynaha socdaalkiisa gaar ahaan magaalada Beledweyne oo iyadoo qayb kamid ah laga sheegay dagaal beeleedyo u dhaxeeya dadka gobolkaasi oo maanta madaxweynaha ku soo aaday iyadoo odayaasha dhaqanka ay si aad u soo dhaweeyeen maamulka gobolka iyo waliba heer degmo isugu jiro waxaana madaxweynaha uu la kulmi doona sida wararka aan ku hayno odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan waa gartay Maxamed waxaan u maleynayaa waa markii labaad madaxweynaha uu booqanayo magaalada Beledweyne waa markii labaad uu booqanayo aan isdhihi karno madaxweynaha uu booqday degmada Ceelbuur hadii aan u galana sidoo kale madaxweynaha uu booqday halkaasi dadweyne aad u tiro badan ayuu la hadlay madaxweynaha uu kaga warbixiyay safarkiisa shaqo halkaasi uu ku tagay socdaalka wuxuuna u kuurgalaya xaaladda goboladaasi ka jira maadaama degmada Ceelbuur laga saaray kooxda al-shabaab nabadiidka oo u kuurgalaya xaaladda nololeed iyadoo la filayn in madaxweynaha degmooyin kale oo tagi doona balse aanan hubin degmooyinkaas waan gartay Maxamed qodobkaas anigana waxaa jira qodob kale aan gacanteeda ku hayo runtii oo aad asagana xiiso u leh runtii Soomaali badan oo qaxooti ah ayaa ku soo laaban rabo dalka Soomaaliya taas oo ku cadeynaysa in dalka Soomaaliya uu haatan noqday nabadii laga rabay heerkii laga rabay uu gaaray qaxootigan waxay ku jiraan Dadaab waa sidoo hore uu booqday ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya waxay sameeyeen diiwaangelin ilaa 2,000 oo qof oo Soomaali ah isdiiwaan gelisay inay sanadka soo socda ay ku soo laabtaan dalka Soomaaliya iyadoo dhanka kale tan Yemen qaxootiga jooga ay laftirkooda is register gareeyeen sida aan wararka ku hayno waan gartay daacad arintaas ayaan ku guda jirnay isla wararkaasi qaxootiga ku saabsan markii dareenka dadka aad fiirisay sidee kula muuqato warbixintan markaas soo ku ururinaysa runtii dadkan isdiiwaan gelinaya maalmahan oo dhan xirada qaxootiga runtii aad ayay waxay u yihiin dad tiro badan oo runtii raba inay markaan ku soo laabtaan dalkooda iyagoo waagii hore ka cabsan jiray in markaasi ay wadanka islaahay nabad ma jirto halkay ku laabanaysan laakiin haatan markay ogaadeen in dalka Soomaaliya uu noqday dal markaasi la tartami kara dalka kale ee caalamka ayaa waxa maalmahan ba socotay sida aan wararkan ku hayno in ay soo diiwaan gelin ilaa 2,000 oo qof oo qaxooti oo ku nool xeradan Dadaab ee Kenya oo sheegeen inay u baahan inay u laabtaan dalka Soomaaliya waan gartay qadka telefoonka daawadaha u horeeya ee fursadda hela daawadadii aad maqasho magacaada iyo waliba wadankaada iga soo wacayso magacaygu waa Cali Cabdow Maxamuud waxaan ka soo hadlayaa wadanka Ingiriiska UK magaalada London علي عدو كسو دو تيفيكا قرنكا لندن حرونتيسا waa mahadsantiin qodobka haddii aad la socotay wararka aanu guud maraynay oo aan falanqaynta warka ku soo qaadanay midii laba haddii aad noo soo koobto
ya qodobada aanu ka hadlaynay falanqaynta warka haddii aad la socoto walaal midii laba inoo soo koob ra'yigaadana wax un inooga taabo run ahaantii wax aan kala socdo horta waxaa ka hadlaysay majaricli gooniya idiin soo waca ayaa jira waxyaabaha oo ka socda waddankeena hadda aad baan ugu faraxsanahay in gacanta dawladda soo gasho in oo meelo badan laga saaray al-shabaab waxaan rabaa oo kale inaan ka hadlo habka u socdaan waxyaabaha oo hadda aan ku faraxsannahay dib u soo haneeshada waddanka waan gartay maadaama cali cadow aadan la soconin warka falanqaynta warka fursad ayaan kuu siinayaa mar labaad anigoo ku xasuusinaya qodobka aanu daahfurka uga dhignay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa booqday magaalada ceelbuur iyo weliba magaalada beledweyne oo halkaasi uu kula kulmay bulshada labadaasi degmo kala jooga aragtidaada ku aadan ayaan doonayaa bal inaad wax nooga taabato adoo mahadsan wallahi wax hortaaga ma jiraan waxaan ku faraxsanahay inuu ceelbuur iyo meeshaas oo booqday intaasoo kaliya ayaan uga hambalyeynaa madaxweynaha howshu haayo allah ku garab galo dawladnimadana allah noo saalo intaas un kaliya cali cadow london aad iyo aad baad umahadsan tahay waa gartay aad buu umahadsan yahay maxamed sidoo kaleeta qodob waxaa jira asagana aan gacanteeda ku haayo oo ah xukuumadda soomaaliya ayaa waxay qorsheynaysaa in shidaal soomaaliya laga soo saaro muddo 6 sannadood gudahooda arinta shidaalka runtii waxaan isdhihi karnaa daacado waa arinta ugu hadal haynta badan markii laga hadlayay dowladdan dhidibada ay usoo istaagtay oo amni oo dalkii uu ka butaacay dadka qaar waxay mar walba ka sheekeynayeen arrintan shidaalka soo isma dhigi kara marka arrintan shidaalka dii dowladda ay ka dhawaajisay fursado badan oo dhinaca shaqada iyo weliba dhinaca aqoontaba dhalinyarada way usoo kordhi kartaa sidaan ognahay maxamedow soomaaliya runtii waa dal wax soo saar badan leh wasiirkan ayaa sheegay in dejiyeen qorshe ay shidaalka soomaaliya usoo saarayaan si macnaha xiisado cusub ee dalkan ka dhasha runtii shidaalkan haddii lasoo saaro soomaaliyana waxaan dhihi karnaa wuxuu u horseedi karaa faa'iidooyin badan haddii markaasi khataraha uu leeyahay laga hortago runtii dowladda soomaaliya waxay qorsheynaysaa inay hore usii socoto taas oo qayb ka ah horumarinta dalka ayuu yiri cumar isagoo intaasi raaciyay aad ayaan ugu taxadiraynaa ayuu in shidaalka iyo gaaska soomaaliya uu sababo colaado iyo xiisado cusub inuusan sababin macnaha aad ayaan ugu taxadiraynaa ayuu yiri wasiirka runtii waxaan dhihi karnaa haddii arrintaani ay suurowdo in soomaaliya runtii ay noqon doonto wadamada qaniga ah oo markaasi caalamka la tartami kara waa tahay qodobka gacanteeda ku jiro oo aan jeclahay inaan bal guud maro waa qodobka ku saabsan dhinaca waxbarashada jaamacadda simid ayaa maalintii shalay ahayd shahaado heer labaad oo jaamacadda masterka degreega guddoonsiisay 29 arday oo ka qalin jebisay xarunta daraasaadka ee jaamacaddaasi oo kaashanaya jaamacadda Open University of Malaysia marka ardayda runtii ka qalin jebinaysa farxad ayaa ka muuqatay waxaana halkaasi lagu sheegay in ardayga kaalinta koowaad uu galay oo noqdo Cabdiraxmaan Maxamuud Saalax hambalyan ay u direen ardaydii ka qalin jebisay waa qodobka waxbarashada doonayna dadka inay nagala qayb qaataan simad waxaan filayaa in muddo ayay dhisan tahay runtii arday badanna way soo saartay ilaa runtii arday badan oo kasoo baxday haatan qaarkood waxay haystaan PhD-ga masterka iyo bachelorka iyagoo qaarkood waxbarasho dibadda u aaday sidaan ognahay wadamadan ay ka mid tahay Malaysia runtii waxaan dhihi karaa jaamacadda simad macadkan simad wuxuu ka qayb qaatay dib u dhiska dalka runtii maadaama uu arday badan dhalinyaro badan oo wax kala ku mashquuli lahaa ee haatan ay ku mashquuleen inay wax bartaan facooda wax la qaybsadaan marka waxaan dhihi karnaa aad ay u mahadsantihiin aad ay u mahadsan maamulka macadka simad qadka telefonka baldaawadaha ee qadka ku jira halow السلام عليكم عبد الرحمن adiga iyo maxamed ba waan salaamaya iyo TV-ga qaranka waa nadiifa cali nadiifa qaran oo London idin kala soo hadlaysa aad ayaan idin salaamaya nadiifa qaran ku soo dhawow barnaamijka falaqeynta ee TV-ga qaranka Soomaaliyeed والله aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynaya TV-ga qaranka Soomaaliyeed iyo adinkaba barnaamijka quruxda badan ee caawa aad meesha u fadhisaan oo ah in markii ugu horeysay gobolka Galgaduud oo la nabadeeyay oo degmadiisa Ceelbuur oo aan ka soo jeedo anigu qaas ahaan oo ah meeshii dadkayga ay dageen oo maanta laga xoreeyay al-shabaab in madaxweynahayna dawladda federaalka ah Xasan Sheekh Maxamuud oo ka dagayay oo aan si aad iyo aad ah bulshada ka soo jeeda Ceelbuur ee adduunka daafihiisa wada joogta ay uga hambalyeynayaan booqashadaas oo ah mid niyada noo wada dhisaysa taas oo la tusaysa midnimada iyo qarannimada madaxweynahayna Xasan Sheekh Maxamuud iyo booqashada kale ku tagay gobolka Hiiraan ee magaalada madaxdiisa Beledweyne oo macnaheeya iyadana uu kala qayb qaadanayo bulshadaas marka caaw farxad bay nooga caddahay deegaanadeeni
oo xor ah deegaanadeena iyo madaxweynaheena dowladda federaalka uu ka qayb galay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inuu xasan sheekh maxamuud oo ka degayo ceelbuur waan gartay nadiifa dhanka kale maamulka degmada ceelbuur iyo gobolka hiiraan maamulkooda maxaad ku ammaani kartaa maadaama goboladoodii ay nadiifiyeen si markaasi ay ka dhigeen in madaxweynaha heer uu imaado oo roog loo fidiyo wallaahi waxaan ku ammaanayaa guddoomiyaha gobolka hiiraan iyo guddoomiyaha degmada ceelbuurba sida quruxda badan ayagoo kaashanaya ciidamada dowladda federaalka ah ee gobolka hiiraan iyo kuwa degmada ceelbuurba sida quruxda badan ee kaarbadka guduudka ah ugu fidiyeen madaxweynaheena qiimaha iyo qaayaha weyn xasan sheekh maxamuud oo aan la soo koobi karin in uu meel walba oo laga xoreeyo nabadiidkaba ilaa gado ilaa baraawe ilaa meel walba uu tagay oo aan leenahay ilaa kismaayo hambalyo xasan sheekh maxamuud adinkana waa idin salaamayaa aada u mahadsantihiin labadiina waa gartay aad baa umahadsan tahay nadiifa oo naga soo wicisay magaalada London aad bay umahadsan tahay maxamed qodobka kale oo asagana aan rabo inaan daawadayaasha aan u kormaro wuxuu yahay ganacsatada jubbooyinka ayaa beeniyay eedeynay usoo jeedisay monitoring group waan gartay monitoring group waxaan isdhihi karnaa waa hay-ad xarunteeda maraykanka iyo qaramada midoobay ay tahay kenyana ay xarun ay ku leedahay mararka qaarna warbixino aan isdhihi karno aan loo meeldayin soo saarta kana soo saarta madaxda dowladda iyo weliba hay-adaha dowladda marka adeentani maxay ku saabsan runtii ayadoo dhawaan kooxdan la socodka alaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مستر عبد الرحمن حاج يوسف iyo maxamed bidaar oo idin salaamaya waa raxme xaaj yusuf ka soo wicin Nairobi waan ka gudoonay salaanta aad baa u mahadsan tahay bal caawa waa la socotay barnaamijka qodobka aad rabto hore u gal si fiican ma sha Allah aad baan ugu farxay barnaamijka quruxda badan marka caawa ay aad u soo dhaweeyeen horumarka ka jira maanta wadankeena Soomaaliya waa wax lagu farxo Soomaalidu waxa u maleeyay hadda inay wax barteen ma sha Allah يعني waddankaaga wuxuu yahay yani faa'iidadiisa marka qurbaa imaatan baa dareemaysaa marka aad baan ugu farxahay ma sha Allah tabarakallah ilaahayna noo sii siyaadiyo waxaan rajaynaynaa Soomaalida inay hiigsato horumar balaaran insha Allah dawladeena aad bay u dadaashay waxaa Soomaalida dadka shacabkan waxaa laga rabaa inay Soomaalida la shaqeysto marka waxa aad walaa loogu farxo barnaamijkan aad buu qurux badan yahay walaalkay daacad waa ku salaamayaa sidoo kale iyo maxamed aad baa u mahadsan tahay raxmo oo naga soo waceysay magaalada Nairobi ee wadanka Kenya aad baa u mahadsan tahay fikirkaaga saliimka waan soo dhaweynaynaa wata daacad warbixintaas ayaan ku sii gaday jirnaa marka monitor maxay soo xigenaysay oo ay dhalinyarada maxamedo iyadoo dhawaanba kooxdan la socodkan xayiraadka hubka ee dalka Soomaaliya iyo Eritrea monitoring group ee qaramada midoobay ay soo saareen warbixin ay ku sheegayso in ganacsatada gobolka Jubbooyinka ay doofiyaan dhuxusha runtii arintani waxaa beeniyay Shaafi Rabi Kaahin oo madaxa rugtan ganacsiga iyo warshadaha ee Jubbooyinka ayaa sheegay in warbixintan dadkan ay u gudbay monitoring groupka ay wuxuu yiri ay yihiin dad dana gaar ah ka leh isla markaana uu yiri ay dacwado kaga furi doonaan maxkamad caalamiga ah iyo kuwa Soomaaliya ayuu yiri oo la iskaga daba tagi doono waxyaabaha ee been abuurka ay markaasi ay qoraan runtii waxaan dhihi lahayn groupkan waa inay waxay qorayaan runtii ay xaqiiqada ay u raadiyaan waatahay wixii warbixina ka soo kadhana daacad falanqeynteena wararkeena ay falanqeynta ayaan ku soo gudbin doonaa daawadaha qadka igu jira daawada magacaada halkaad iga soo wacayso والله waxaa ka soo wacaya Mozambique waa Maxamed Cabdalla Yusuf Maxamed igu celi mar labaad codkaada maadaama uu igu dheeryahay halkee joogtaa walaal Mozambique ayaa jooga magaala xeebta Bemba waan gartay barnaamijka falanqeynta warka hadii aad la socotay ku soo dhawaado maatan maasanta walaal madaxweynaha federaalka Soomaaliya mudan Xasan Sheekh Maxamuud booqashooyinka ku galay magaalada degmada Ceelbuur iyo gobolka Hiiraan magaalada madaxdiisa dadweyne aad iyo aad ayay ugu farxeen shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan marka maadaama anaga nahay Soomaaliyeed madaxweynaha meel walba oo laga xoreeyay nabad iyo nabadgelyada argagixisada al-shabaab shacabkeena Soomaaliyeed aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay wax qabadka oo qabanayo dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha maadaama uu dhiirigeliyo shacabkiisa meel walba oo laga xoreeyo oo waliba xataa u taa dadka xataa dhiirigelin aad u muhiimsan watay maxamed waxaad dhawaajisay madaxweynaha Soomaaliya deegaanadaasi oo booqday ka dareen ahaantaada markii madaxweynaha oo booqday maxaa dareen oo aad dareentay maxaa kugu soo kordhay maxaana aad madaxweynaha ku tilmaami lahayd booqashadiisa deegaanadaasi wallahi waxa ku tilmaami karaa nin geesi ah oo u baawac dhigay in uu bulshada kasbado maxaa yeelay waad dareemi kartaa dad ay
heerye dul saarneed ay gumaysanayeen dad nabad iyo nolol diid ah oo si qaldan diinteena suuban saliimka ah fahmay si qaldan dadka u dhaadhicin jiray madaxweynaha waxay caddeynaysaa dadka shacabka Soomaaliyeed ee ifafaale tusaysaa inuu madaxweynaha yahay nin tusi kara shacabka kalsooni maadaama xasan sheekh maxamuud oo meelo badan booqday sida Barawo kale sida meelo badan oo baaqday marka madaxweynaha waxa ku dhiirigelinaynaa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed sax inuu dhiirigelintu sii wado iyo wasiirada iyo dhammaan dawladda hay'adaha ka koobantoo dhan marka iyo saaxiibka kula fadhiyo dhammaan waan salaamaya bahda TV-ga qaranka Soomaaliyeed Soomaaliya guul ayaan ku leenahay anagana aad baa u mahadsan tahay runtii si fiican ayuu walaalkan uga hadlay qodobadii markaasi runtii waana wax lagu faanay in Soomaaliya mar kale ay ku soo istaagto cagaheeda runtii meel walbana ay Soomaaliya noqoto in nabad qof walbaba uu ku socdo xilliga uu doono waanu jecelnahay in markaasi markastan ay noo socoto qodob kale ayaa waxa jira Maxamed asagana wasiirka boostada iyo isgaarsiinta mudane Maxamed Aadan Ibrahim oo safar asagana shaqo runtii ku jooga dalkan South Korea ayaa kaga warbixiyay xaaladda Soomaaliya iyo sida ay markaasi ay marayso isagoona sheegay runtii in dawladda Soomaaliya ayuu yiri waxay ku tala jirtaa inay doorasho qaban doonto sanadka 2006 ayuu yiri aanan fogeen isgaarsiintan ICT waxay sahli doontaa ayuu nidaamka diiwaangelinta qofka markaas inuu u codeeyo si fudud runtii marka wuxuu ula jeedaa marka isgaarsiinta ICT-da siday muhiimadda ugu tahay doorashada 2016 runtii waxaan dhigi karnaa shaqo wacan ayuu hayaa isagoo anagoo og haatan in la furay boostadii Soomaaliya muddo 22 sano kadib marka waxaanu leenahay shaqadaada halkaas ka sii wada ayaan leenahay mudane wasiir waa tahay daawadayaal halka aad nagala socotaan oo aad naga daawanaysaana waa TV-ga qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa magaalada Talanda wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka falanqaynta warka aan ku gurfayno oo aan ku qaada dhigno wararkii maanta ay daawateen oo dunida caalamka idinkaga iimaanaya bal daawadaha qadka ku jiraya daacad hello hello haddii aan maqasho magacaaga halka naga soo wacayso awlaal magacay waa Cabdidool waxaan kala soo hadlayaa Columbus USA waxaan rabaa farxadan in kala qayb qaato madaxweynaha Soomaaliya hadda uu ku joogo gobolka Hiiraan madaxweynaha Soomaaliya waxa laga rabaa insha Allah hawsha uu wado halkiisa ka sii wado ummadda Soomaaliyeed maanta waxay u malaynaysaa dawladda Soomaaliya hore iyo mid maxay ahayd lamid inay dalka uga dhawaad anaga horta kullu gurbahan joognaa waxaan arkaynaa midacadaha aan ka fiirsanayna farxad laayay noo tahay idinkuna niyad ayaa noo dhisaysan idaacadda SNTV si gaar ahaan waxaan ugu hambaliyaynayaa sida quruxda badan ay wax noogu soo jeedinayaan ama aan u siirsano si maxay ahayd aan u hiirsano ayahanaga dambe iyo mustaqbalkana inuu horumar gaaro marka waxaan idin leeyahay guul insha Allah madaxweynaha waxaan kala ka codsanayaa gobolka Gada si aad ah dadku oo iyo rafaad ugu dhamaanayaan in meeshaas aad loo caawiyo arboyada haday yihiin ma garanaysaa معاونة حق بدن وحجي ودولة إكها شو أصلا لفتي سو مرات كنا وشركة كسر الجو كذا وكذا معتن دون يا مقر وقرتي إن وحال هذا هاي مدحوينا دذلك وضعي وبقشة وضع أدب وجمع سيء هاي إن وقرتي أنا جنا وحن كلنا هاي إن وأنا كقدوني إن أديك وأنا قصوا وعي كولومبس إن مقالة إن وطن كان مريكان كأصحابته أديك دمام وحن يدين لنا هاي وأدين سلامنا سلام الله صاحب وقرتي إن وحن فيليا إن رنتي إن محمد عاوة برنامجي إن ميلاد هادير وبندان دونان. وطاي داعد وحنا سدي كرنا خطف كعاوة رنتي أنا سدي كرنا داودياش وسوجي تي أو إن بقول كي بس ديتني شنو وين نقل خيب قاتنا أن إيه كرنا خطف وكوساب سب بوقشة مدحوينها إن قبل هذا نحى دالك الصومالي قارهان مقالة عربور ودتك سي عادة أي أدنيني مدحوينها وتقو إيه وليبا deegaano kale aan rajeynayno in madaxweynaha uu tagi doono daawadayaashana waan u soo gudbin doonaa hadba warkaasi meelaha uu mari doono sidoo ku soo bixi doono falanqaynta warka ayaan u soo gudbin doonaa hadii ay bawad waa sida sheegtay maxamed runtii markii madaxweynaha shaqo badan ayuu hayaa isagoo degmada Ceelbuur tagay haddana wuxuu tagay beledweyne runtii waxaan ogaa inuu mar dhow Faransa uu joogay uu ka tagay runtii shaqo badan ayuu hayaa runtii waana mid runtii lagu amaani karo adigoo madaxweynaha oo habeen iyo maalin u taagan dalkaaga waxaan filayaa Soomaali badan runtii inay ku qanci doonaan shaqada uu hayo ummadiisa runtii waxaanu leenahay shaqo sahlan ma ahan marka waan soo dhaweynaynaa anaga laftirkeena bal daawadaha qadka ku jira waa gartay bal hello assalaamu calaykum wa calaykum salaam waraxmatullaah magacaaga meesha naga soo wacayso magacayga Yuusuf Xasan Jimcaale la yiraahdo Bristol aan ka soo wacay Yuusuf oo Bristol ku soo dhawo falaqaynta warka SNTV Cabdiraxmaan Xaaji Yuusuf oo salaam waan ka gudoonay ku soo dhawo barnaamijka waxaan filayaa inaad la socotay
maasha allah waa la socday waa ku faraxsanahay madaxweynaha inuu tagay galgaduud gaar ahaan ceelbuur waa gartay barnaamijkana waa barnaamij aad u fiican oo hadda sidaad london uga daadihinaysin inaad markasta sidaan u qabatiin fiicneed waa gartay barnaamijkan Yusuf waxaan ugu talagalnay runtii daawadayaasha idinka ah in markasta ay la socdaan wixii Soomaaliya ka socda wixii wararka ku baxay oo tafaftiran idinkana markaas fikirkiina nagala qayb qaadataan maasha allah aad aan ugu faraxsanahay horta madaxweynaha inuu tagay ceelbuur iyo beledweyne waa gartay laakiin se waxaan dhihi lahay madaxda dalka markay meel booqdaan markay kasoo tagaan kadib inay dhibaatadii meesha ka socoto sida aan ogna hadda ceelbuur waxaa laga sheegaa biyo la-aan baahsan sida abaar baahsan dad fara ku tirisa inay ku hareen waxaan jeclaan lahayn inayna noqon dalxiis ee dadka meeshaas jooga wax loo qabto ma garat waa gartay waxaan rajaynaynaa in dowladda il gaar ay ku fiiri doonto booqashada madaxweynaha uu tagana ay wax badan iska bedeli doonaan goobahaasi hadda xaaladda ceelbuur wax badanaan kala socdaa dhibaato badanaa ka jirto xagga amniga ah oo inkastoo hadda amnigeeda aada u fiican laakiinse xagga gaajada xagga baahida dadka ay qax ku wada maqan yihiin duurka ku wada jiraan waxaan dhihi lahay dadka inay ku bogaadisay inay kusoo noqdaan magaalada ceelbuur kabacdina hay-adaha gargaarka iyo beesha caalamka ay u weydiiyaan gargaar deg deg ah laakiinse markasta waxaan aragnaa madaxda markay meesha kasoo tagaan kadib warka meeshaas ku dhamaado ma rabna inuu ku dhamaado meeshaas warka markasta waxaan rabnaa in waxqabadka ay la garab taagan yihiin goobaha markaas ay sidaas ku qabsadaan waa gartay waxaan filayaa in arrin fiican ay tahay dowladdan ay karaankeeda ay wax u qaban doontaa laakiin mideeda kale qurba joogta ayada laftirkeeda waxaa loogu baahan yahay jaaliyadaha inay meelahaas oo kaleeto laftirkooda intay is aruuriyaan ay wax u qabtaan si markaasi gacmo waxaa la yidhi wadajir bay wax ku gooyaan annaga diyaaraan unahay contributionka inaan bixino laakiinse waa in la helaa dad isku xiran in dadka lagu soo celiyo meesha hadda ceelbuura kale hadda waxaa la sheegaya dad fara ku tirisaa jooga waxaan u baahanahay in goboladaas galguduud hadda meelo badan aan weli gacantaas dawladda aan ku jirnaa jiro sida meelaha for example haddaan kusoo qaato ceel dheer oo kale iyo dhulkaasoo dhan ilaa galcad gacanta dawladda waa ka baxsan yihiin dawladda inay dadaalkeeda gashaa loo baahan goboladaas siday ku xurey lahayd oo kale soomaaliya xukuumadda soomaaliya qorshaheeda waa geeska gees inay nabad kusoo celiso ay xureyso insha allah wayna dhacaysaa aad baa umahadsan tahay fikirkaaga waana soo dhaweynaynaa barnaamijyadeena kalena waxaan jeclahay inaad nagala soo qayb qaadato waa tahay daacad haddii aan isku soo laabano qadka telefonkan ka soo laaban isla waxaan ku jirnaa wararka ku saabsan deegaanada ay booqanayaan mas-uuliyiinta dowladda madaxweynaha ugu horreeya isla booqasho kaloo iyadana ku saabsan degmada waajid ee gobolka bakool ayaa waxaa booqday wafdi xildhibaano ka kooban waxaana kamid ahay xildhibaan macalin cali oo kamid ahaa wafdiga maanta gaara degmadaasi waajid ayaa la hadlay warbaahinta qaranka wuxuuna u sheegay in dadka ku dhaqan deegaanadaasi ay xaaladooda ka wareysteen isla markaana dhowaan uu maamulka degmada ka howlgeli doono degmadaasi ayaa waxay kamid degmooyinkii looga awood roonaaday kooxda al-shabaab isla markaana laga saaray haddii aan ku xasuusino degmada waajid waxay u ahayd hay-adaha caalamka oo idil iyo weliba kuwa qaramada midoobay degmada ay kusoo degaan isla markaana degmada laga xukumo hay-adaha oo bartamaha iyo weliba koonfurta soomaaliya laga xukumo taasoona hadda ay rajeynayaan in xildhibaanada iyo weliba dowladda in degmadaasi magaca ay ku lahayd dhinaca hay-adda ay dib u soo ceshato runtii waa wax fiican waxaana leenahay meeshiina kasii wada dadaalka sidoo kale madaxweynaha xasan sheekh maxamuud oo fariin muhiim ah u diray bulshada soomaaliya maxamed runtii bulshada soomaaliya wuxuu yihi madaxweynaha runtii waa in laga hadlaa dhibaatooyinkii ka dhacay dalkeena iyo raadka ay ku reebeen dadka iyo dalkaba soomaaliya iyo weliba sida uu sheegay in loogu baahan yahay in ay dadku u istaagaan horumarka iyo wada waxqabqabsiga si ay uga baxaan dhibaatada daahsatay runtii waana fariin oo usoo diray dadweynaha soomaaliyeed meel walbay joogaan haddii daacadan kuusii raaciyo isla safarka madaxweynaha waxaa ku weeliyay wasiirka warfaafinta mustafa sheekh cali dhuxulow ayaa isaguna wafdigaasi kamid ah madaxweynaha la socday mustafa cali dhuxulow ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu madaxweynaha u raaco degmooyinkaasi ceelbuur iyo weliba beledweyne wuxuuna u tacsiyadeeyey dadkii dhibaatadu ay kasoo gaartay shaqaaqadii yareed ee ka dhacday qaybo kamid ah gobolka hiiraan wuxuuna rajeeyey in arintaasi la xalin doono isla markaana madaxweynaha uu xalin doono haddii ay baway runtii isla maxamed warkaaga adigoo ku jira wasiirka warfaafinta mudane muster dhuxulow runtii waxaa lagu amaani karaa asaga laftirkiisa mar walba isbuucii wixii dhaco dowladda ayuu dadka u faahfaahayaa waan gartay waxaan dhihi karnaa shaqo wacan ayuu qabtay isagoo markuu Nairobi kasoo laabtayna isbitaalka ku booqday wariyaashii lagu dhaawacay halkaasi runtii waxaanu leenahay wasiir adigana halkaada kasii wada hawshaada bal daawadaha khadka ku jira halo habeen wanaagsan kusoo dhawow barnaamijka afalaqeynta warka magacaaga meesha naga soo wacayso waxaa la dhahaa maymuun waxaa idinka soo wacaya Hollanda maymuun kusoo dhawow barnaamijka qodobkaad rabto hore u gal waa kusoo dhawaay horta waa gurigan ku leeyahay kasoo qayb gashay telefishinka qaranka Soomaaliyeed adiga ahaan daacad waa mahadsan tahay okay wiilka kalena waa salaamaya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay madaxweynaha degmooyinka uu tagay gobolada uu tagay
kulli waxaa ka socda wadankoo dhan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waanu u duceynayaa insha allahu tacaala soomaaliya sidii ahaan jirta inuu ilaahay ka dhigo insha allah hadduu ilaahay yiraa aniga wadanka waxaan kasoo tegay asoo nabad ma fahantay waa gartay haddana waxaa rajeynaysaa asoo nabad inaad ku noqoto maasha allah insha allah weli waxaan jeclahay inaan 2016 marka la isdooranayo isku aadiyo hadduu ilaahay yiraa cod si aa codkaada u dhibatid soo ma maasha allah aad iyo aad meeshaas anigoo 20 sano jiraan kasoo tegay ma kastay صح ما شاء الله marka wallahi nabad iyo barwaaqo iyo wax walba waa iska haysanay alxamdulillah shukur haddana wuu jecel yahay inuu madax dawladda ay kusoo celiso mideeda kale waxaan kusii faraxsanahay xitaa maanta markii golaha wasiirada kulli oo laga wada hadlay in gurguri la galaayo oo laga baaraayo hubka iyo garaashada iyo wax oo dhan ma fahantay صح taasna aad iyo aad baan ugu farxay ilaahayna ha garab galo dawladda iyadoo isku duuban aniga waan u mahad celinayaa isbeshaalmeenta adinka waxa waaye telefishinka niyadda ii dhistaatiin ani ahaan niyadda ii dhisteen telefishinka qaranka soomaaliyeed mar walba waxaan u adeegnaa waa shacabkeena dadkeena Soomaaliyeed runtii dawladana waa sidoo kale ay dadkeeda ugu adeegtaa waxaana noo balanaa 2016 in Soomaaliya aan codka ka wada dhiibo insha Allah kooxda qayladaan waxaan inaan dhaho waa mahadsantiin waa tay heeska qaadeen baraawi ceelbuur waa kaasa baraawi ceelbuur xor waay hadduu ilaahay yiraa ما شاء الله aad baa u maasantahay Maymuun waxaan leeyahay gacan qabsada isgarabsada hadduu ilaahay yiraa waa in Soomaali loo soo shaqo doonta sidoo yiri madaxweynaha fariintiisana ilaahay ha aqbalan leeyahay hadduu ilaahay amiin waan soo dhaweynaa aad iyo aad baa u mahadsantiin telefishinka qaranka Soomaaliyeed meel walba aad joogtiin waan ka gudoonay anagana aad baa u maasantahay adiga asxaabta reer Holland waa idin salaameena aad baa u maasantahay maxamed waxaan filayaa Maymuun waxay tiri 2016 waxaan rabaa inaan doorashada aan ka qayb galo runtii anigana waaba sii diyaarsadayba waa ka qayb gali doona adiga waxaan maleynayaa gadaal ka imaan doonta waan gartay 2016 cid walba oo magac Soomaali sheeganayso af Soomaali ku hadlaysa waxa inoo badan Muqdisho iyo waliba 2016 waa taa mid aan wada sugayno aan wada rajeynayno dadka iyo waliba warbaahinta iyo waliba saxaafadda ay halkaasi ka soo tamin doonaan isla markaana lagala qayb qaadan doono dadka sida ay ugu qayb galaan doorashadaas waan rajeynaynaa in si nabada oo caafimaad iyo waliba barwaaqo ay ku jirto inay ku dhacdo waa gartay waxaan filayaa qodobadeena haddii aan markale xasuusino daawadayaasheena qodobada aan faalada kusoo qaadanay waxaa ka mid ah xukuumadda Soomaaliya ayaa qorsheynaysa inay shidaalka Soomaaliya kusoo saarto muddo 6 sano gudahooda ah sidoo kale wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta mudane Maxamed Aadan Ibrahim oo safar shaqo ku jooga dalkan South Korea watahay sidoo kale warbixinadaasi waliba warbixinada kale gacanteeda ku jira ayaa sheegaya madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa gaaray degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud iyo waliba magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaana dadweyne aad u tiro badan ay ku soo dhaweeyeen labadaasi magaalo isagoo madaxweynaha u ballan qaaday dadka ku nool magaalada Ceelbuur inay la soo gaarsiin doonaan gargaar degdeg ah kadib markii looga awood roolaado kooxda al-shabaab oo ka talin jirtay degmadaasi wararkaasi waliba warar kale ayaa falanqaynta warka caawa kaga bogan doontaan daawadaha qadka ugu jira magacaadii waliba wadanka joogto hooyo Soomaaliyeed waaye wadanka joogana waa Finland hooyo Soomaaliyeed Finland kusoo dhawaad falanqaynta warka waa ku dhawahay ra'yigaada ayaan doonayaa inaad ii soo koobto waqtigaan ku siin inaad ka faa'iideysato waxaan ku soo koobaa waqtigeygan oo ka faa'iideystaa magaalada Ceelbuur in madaxweynihii tegay yacni waa faa'iido weyn oo annaga farxad noo ah ha yeeshee waxaan kasii xumahay dadkii oo duurka yaalla oo maaragtay u baahan in inta duurka loogu tago laga soo qaado meelaha ay ku baktisan yihiin baahida weyn ku hayno u baahan yani imaashada madaxweynaha kaliya meesha tagay waxba noo hooyo Soomaaliyeed hadii aan su'aalan ka weydiisto arrintaasi ku saabsan waxa tiray dadka duurka yaalla madaxweynaha Soomaaliya wuu booqday degmada wuu tagay dadkii hortooda ayuu ka hadlay ballan qaadi ayuu u sameeyay dadkii way soo dhaweeyeen adiga taasoo idil kuma muuqato miya waa way muuqataa waana wanaagsan tahay balse waxa iiga sii fiicnaa lahayd in dadka inta la dhaqaaqo duurka laga soo baxsho geedaha hoostooda ay ku baktisan yihiin oonku ku hayo baahida ku haydo la isu keeno oo magaalada lagu soo celiyo waa taa hooyo Soomaaliyeed gabagabadii marka waxaa jirto haddii wax la qabanayo in taagba lagu gaaro oo aan hal mar la wada gaari karin marka madaxweynaha hadii uu karay inuu tago oo dadkii uu la hadlo ballan qaad u sameeyo taana way ku xigi doontaa insha Allah hadii aanu rajayno adigana rajadaada marnaba ha ka quusanin
ma ani ma quusanayay balse waxaan rabaa dadka macaawinada oo u dalbay ceelbuur oo banaan muxuu siinaa ceelbuur waa aqaan geedkeedan waa aqaana waa maadsantahay hooyo Soomaaliyeed aad baa u mahadsantahay waanu rajaynaynaa in daawadayaasha qodobada kale ay nagala qayb qaadan doonaan qof walbana waxaan ka codsanaynaa in waqtiga uu inoo soo koobo maadaama dadka ay aad u tiro badan yihiin isla markaana ra'yigooda ay jecel yihiin inay nagala qayb qaataan waa mar labaad ayaan ka codsanaa anigii saaxiibkay daacad in ra'yigeena fadlan ay inoo soo koobtaan waa gartay dadka Soomaaliyeedna runtii waxaan dhihi karnaa ama waxa looga baahan yahay in markaas ay sameeyaan dulqaad runtii dawladda dadaal ayay wadaa wax walbana waxa lagu gaaraa waa tilaabo hal mar lama wada qaban kara wax walba waxaan rajaynayaa dadka laftirkooda inay ayaga xataa fahmaan sidoo kale waxaan war hadda gacanteeda asaga ku soo arday soo saartay ay jirto hab cusub oo loo beeri karo cawska runtii waxaan dhihi karnaa in markaasi Soomaaliya ay haatan ay la tartamayso cilmiga adduunka waa gartay arrintaani ku saabsan cooska waxaan ku naqaanaa wadamadan aan joognay qurbaha oo sida ay ugu magac dareen afka qalaad lagu yiraaho cooska aanan coos rasmi aan ahayn balse u dhigma cooski marka mataa ayaa ula jeedaa waa sida sheegtay cooska oo ciid la'aanta la beero ayaan ula jeedaa maxamedow ardaydaani wax ka baratay jaamacadda Jazeera ee magaalada Muqdisho gaar ahaan kuliyadda beeraha iyo xanaanada xoolaha ayaa maanta magaalada Muqdisho ku soo bandhigay hab abuur cusub oo aan horey loo aqoon runtii kaasoo oo iyagoo soo saaray calafka xoolaha oo loo beero ciid la'aan runtii waxaan dhihi karnaa jaamacadaha Soomaaliya aad ay u dadaalayaan markaas arrintaasi ku saabsan cooska la beero daacado ka dareen ahaantaada maxaad muujin leedahay caawa runtii markaan wadamadan aan imaanaynay oo kale maxamed waxaan la yaabnay ay ahaan jirtay dooro oo hore ukunta ee dooro ka noqonayso kale iyo waxyaabaha aan la yaabi jirtay laakiin haatan Soomaaliya ayaa horumarkii la talaabsatay marka taasna waxay ku cadeynaysaa in wadanka ay joogaan dad aqoon leh ee jaamacado fiican oo wanaagsan aan dhihi karnaba ku halkan ka sii wanaagsan ayaa dalkeeni ay ka jiro waanu sugi doonaa haatan haddaan aragna coos la soo saaray talow maxaa xiga waa midaan wada sugi doona runtii taas waxay ku cadeynaysaa sawirka guud ee dadka ka qabaan markay qurbaha joogaan in Soomaaliya macnaha ay dambayso oo kaleeto sawiradaas oo dhan way ka baxayaan markay aad aragto in coos bilaa ciid la soo saarayo taasina waxay ku cadeynaysaa in Soomaaliya ay horumarsan tahay runtii waxaan rajaynaynaa anagoo guud ahaan dadka qurbaha joogan inaan wadankeena dib ugu laabano insha Allah waa tahay khadka telefoonka daacad hello السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مقعد قالك أي صوت عيسى؟ ولا الحريدة حاج حسن. حاج حسن كسر هو فلقين توركا. هو أدبا وما سنتي وحن كسر لا دلك السويدن جارهان مقالة النخو. وقرت يقفك يقول السويدن نقصوا كسر هو. ودان قد كان كجور لكن أنت بنرير لندن أيجا بوس كي قاطع. ديف ولا نات كدي بوس أيا لو بنين دونا رير السويدن. اوكي وما سنتين ولا هدي aan ka qayb qaato barnaamijka aad baan ugu faraxsanahay madaxweynaha safaradiisa dhiirigelinta oo markaas dadka shacabka Soomaaliyeed oo dhiirigelinayo sidoo kale aad baan ugu faraxsanahay gaar ahaan inuu tagay gobolka Hiiraan oo maalmahan laga sheegay xogaa colaad iyo waxsaas taasina waxaan rajeyn doonaa in ay u naqad doonto mid xal waarta keento booqashadii maanta madaxweynaha ku tagay meeshaas dhinaca kale aad baan ugu faraxsanahay booqashada madaxweynaha ku tagay ceelbuur aad baan ugu faraxsanahay taasina waxay noqonaysaa rajo aad u wanaagsan iyo shacabka reer ceelbuur oo aad u soo dhaweeyay oo niyadooda aad u dhismi doonto saas ayaan rajaynayaa waa gartay aad baa u mahadsan tahay waana sax maadaama madaxweynaha hadduu tagay waxaan filayaa reer beledweyne iyo reer ceelbuur reer galguudba inay si fiican usoo dhaweyn doonaan halkaasina ay ka bixi doonto dulduleeladii jiray aad baa u mahadsan tahay waanu ku salaameynaa adiga iyo asxaabta Sweden waan kartay daacad wata daacad hadii aan usoo laabano qodobada horta kolley caawa dareen qaasaya dadka ay ku beertay maxaad is leedahay caawa qodobka ugu dareenka badan dadka soo jiita waa qodobka runtii qodobada horta kalama dhacaan laakiin qodobka dadka soo jiita waxay tahay qodobka runtii madaxweynaha Soomaaliya runtii oo booqday ceelbuur beledweyne iyo sidoo kale taba sida hadda warka noogu sheegtay galgaduud waxaan filayaa qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed uu dareemi karaa marka madaxweyne tahay wax fudud maaha in meel aad tagto waa shaqo adag laakiin runtii waxa la dhihi karaa madaxweynaha wuxuu geliyay waqti badan iyo dadaal badan si markaasi ummadiisa ay ugu qancaan waa tahay isla warbixinta waxaan ku guda jirnaa magaalada beledweyne haddii aan ka gudubno dhinaca madaxweynaha waxaa maraa webiga Shabeelle magaalada beledweyne weliba gobollo kale oo dalka Soomaaliya ku yaala waxaana ku fatahay webiga Shabeelle xaafado kamid ah sida xaafada Howlwadaag iyo weliba xaafada Xaawataake ee ka wada tirsan gudaha magaalada beledweyne
webigaasi ku fataha dadka ayay sheegeen in dhibaato ay kala kulmeen balse laga cabsi qabo in xaafado ku yaala isla gudaha magaalada beledweyne inuu ku fataho iyadoo haatan dadku ay bilaabayaan barakac ku saabsan webiga siday uga barakici lahaayeen oo uga badbaadi lahaayeen dhibaatadiisa waanu rajaynaynaa wixii warare ee ka soo baxa arrintaasi ku saabsan fatahaadda webiga oo si caadiyanba amuuro lah ku timaado gobolada dhexe ee bartamaha Soomaaliya ku yaala oo mar webiga Shabeelle kana mid ah gobolka Hiiraan oo isaguna dhowr mar hore webiga uga fatahay bal qadka xiga daawadaha ku jira haddii aan ka qabto daawada magacaada halkaad iga soo wacayso halo haddii aad maqasho halo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaada iyo waddankaad iga soo wacayso walaal maxamed fiido baa la yidhaha waxaan idinka soo wacaa Oslo maxamed fiidow aad iyo aad baan kuu soo dhaweynayaa Oslo caasimada dalka Norway falanqaynta warka haddii aad la socoto guda gal walaal waa la socday marka koowaad maaragtay aadan i gudbin laakiin saba maxamed haddii aad maqasho ha waa ku maqlaa qodobka hore u gala gal codkaadana kor igu yara qaadado maadsan cod walaal waxba kama maqlo waxaan filayaa waan ka xumahay maxamed waan ka gudbayaa maadaama aanu ismaqli laanahay daawadayaasha kale ayaan rajaynaynaa inaan u gudubno bal qodob waa gartay haddii maxamed aan usoo laabto qodobka qaxootiga ahaa hay-adan MNST oo ugu digtay Netherland inay dib u celiso qaxooti Soomaaliyeed runtii dowladda Holland ayaa rabtay inay Soomaali qaxooti dib u celiso laakiin hay-adan ayaa waxay leedahay waa inay ka digtoonaataa Amnesty International oo runtii ah hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa warbixin ay soo saartay waxay eedeen ugu jeedisay dowladda Holland taasoo ay hadda ku sheegtay in qaxootiga Soomaaliyeed ee Holland ku nool ay ku celiso goobaha dalkan ay kaga sugan tahay xarakada al-shabaab waxay al-shabaab ay ku yiraahdeen iyadoo xustay inay taasi xadgudub ku tahay xeerkan caalamiga ah ee qaxootiga maadaama meeshaasi ay waxay yiraahdeen aysan nabad ahayn marka waa inay ka fiirsataa inay dib ugu celiso dadka qaxootiga waan gartay qodobkaasi faahfaahintiisa waan jeclaa dib ayaan kaa weydiin doonaa bal daawadaha ku jira daacado hello salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله هدي عدك أقرنا وقاعد ما قاعد يمشي أنا قصة وعس محمد حسن وي سومالي بان كلاس والله يا إن محمد كسو دو إن فارقين توركا SNTV وان كله هو من سلامة يا أصحاب الذين إنني يوزك حق فرصمة أوفر يا SNTV يا دمان شغالة SNTV واسكو حولي إن يدك صوب دك الصومالية بدأ يدبد بعيسو قارسيان warar tafatiran oo wanaagsan oo dadkana qalbiga ku gudaha jooga wixii yaalo way barkayaan dadka dibadana dalkii inuu fiicnaaday gaarsiinaya aad baad ugu mahadsantiin waana kaa gudoonay hambaliyadaada iyo salaantaada qodobada aan soo qaadanay oo caawa dadka dhan ay ka wada hadlayeen qodobka ah madaxweynaha oo booqday degmada Ceelbuur iyo Beledweyne sidaad u aragtaa ka go-ay maxamed cusmaan oo Soomaaliya inaga soo wacay waanu ka xunnahay waanu rajaynaynaa haddii uu karo waqtiga inuu dib inoogu soo celiyo qodobkani ku saabsan qaxootiga daacad waxaan ogsoonahay waddanka Holland ee ka tirsan Europe in horay qaxooti oo sheegay inay celiyeen dad Soomaaliyeed oo qaxooti wala wararkaasi aan la hubin marka arrintaani bal si fiican inoogu tafatir maxaa ku soo beega xilligan runtii dhawaanba way sheegi jirtay dowladdan Holland in qaxooti Soomaaliya ay dib u celin doonto iyadoo aanan u celinin balse waxay rabtay inay u celiso hay-adan waxay leedahay waa inay joojisaa qaxootiga ay dib u celinayso runtii waxayna leedahay waa inay hubisaa ilaa si rasmi ah oo loo xaqiijiyo nabadda waddanka ay ku soo sheegtay marka waxaanu leenahay ilaa haatan ma jirto qoraalka ay ka soo saartay dowladda Holland arrintan lagu eedeeyay inay markaasi qaxooti Soomaaliyeed ay rabto inay dib ugu celiso waa tahay wararka kale aanu jeclahay inaan u gudbo waa warka ku saabsan wafdi ka kooban xildhibaano golaha baarlamaanka ayaa gaaray degmada Waajid ee gobolka Bokool halkaas oo looga awood nuraada isla markaana laga saaray kooxda al-shabaab degmada Waajid ayay waxay xarun u ahaydba hay'adaha caalamka qaar ahaan hay'adaha qaramada midoobay kuwada gargaarka degdega iyadoona haatan xildhibaanadu ay ballan qaadeen in magacii ay ku lahayd gobolka Bokool ee degmadaasi Waajid ay dib u soo celin doonaan haddii ay bawid maqadka telefoonka hello السلام عليكم وسلامتين وإن سلام يا أديك داعش يو محمد انتبه وحاد وفرح سنة عاونا كسوق يبقلو إذاعة الشعب كالصوماليات مقعيق داير عبد الله جلاع واقرتي داير ملكة
waxaan rabaa inaan fikrad yar ka dhiibto tegidda madaxweynaha uu tegay ceelbuur aad baan ugu faraxsanahay farxadeedu wax lasoo koobi kara ma aha waxaan kaloo aada ugu faraxsanahay qabsashada laga qabsaday nimanka naxariislaawayaasha ah mar walba dadka naftii iyo noloshii intaba u diiday qabsashadii laga qabsadana aad baan ugu faraxsanahay waxaana leeyahay insha allah soomaaliya ilaahay guul ha ka dhigo annagoo dhan meesha aan leenahay ama nawada sugaysana waa soomaaliya cid walbana kii af ku taageerayo iyo kii dhaqaale ku taageerayo mar walbana ummadda soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa inay mar walba khayrka ay afka ka sheegaan ficilkiisana ay sameeyaan mar walba ay khayrka dhankiisa ay usoo wada jeestaan wadankii annaga iskale annaguna sugaa dhan walbo iyo wax walbo cid kaleeto u dhalanaysana ma jirto marka in la aamino waaye wax walba inay annagana sugayaan haddii ilaahay idmo ilaahayna waxaan ka rajaynayaa dowladdan in mid caadilana ilaahay noogu sii siyaadiyo ilaahayna nabad iyo barwaaqo 2016 si nabad aan nagu gaarsiiyo si farxadlana uu noogu dhamaado doorashada insha Allah saan rajeeyay aad baa u mahadsan tahay waa sidaa sheegtay Soomaaliya haatan meel walba waxay noqotay nabad waxaana xukunta dowladda federaalka Soomaaliya iyagoo aad aragtaba madaxweynaha inuu haatan gobolada dalka dhan uu marayo marka aad baa u mahadsan tahay waxaana inoo balanaa doorashada 2016 inaan codka ka wada dhiibano marka aad baa u mahadsan yahay daawadahaasi Maxamed waa tahay waa run arrintaasi iyo weliba arrimo kala badan waan soo gudbin doonaa sidaan hore u sheegnay daacada arrintaani ku saabsan waxbarashada ayaan jeclaa bal inaan noqol ka mid aan wax ka taabto agaasimaha xarunta daraasaadka sare ee jaamacadda simad injineer maxamed maxamuud calasow oo hadal ka jeediyay xafladda shahaadada lagu guddoonsiinaya ardayda ayaa sheegay in tallaabadaani ay aad dad badan u xaqiijinayso in waxbarashadu ay heer sare ka gaartay Soomaaliya isla markaana uu ugu taageerayo ardaydaasi qalin jabiso kuwa kale ku soo jira wadadan oo uu sheegay in wadadaasi mid lamid ah ay mari doonaan hadii ay bawidma bal daawadaha qadka ugu jira ayaan jeclaa inaan ugu gudbadaawada magacaada halkaad iga soo wacayso adoo maadsan هلو هدي هذا مقشة هلو هلو يس ولا المقع عادي ودنك جوجت عد كذا نكر يرى يقول كذا ما هتصل waxaan joogaa wadanka Norway magacayna waa Geedi Norway ku soo dhaw barnaamijka falanqaynta bal ugu dagal ra'yigaadana ii soo koob waa dhawayaad baa mahadsan tahay waxaan rabay inaan ka hadlo waxaan maqlayay madaxweynaha tagay ceelbuur iyo Beledweyne aad waa arrin soo dhaweyn leh aadna farxad leh laakiin waxaan leenahay ma baahna soo dhaweyn kale waa shaqadii madaxweynaha iyo hawshiisii wax uu bulshadu ka sugaysay waxaan aad u danayn lahayn meesha in loogu bedelo wadankan ay dhibaatadu muddada haysatay qaabkii ummadan iyo bulshada dhibaataysan wax loogu qaban lahaa sidii la isugu xir lahaa bulshada gudaha iyo tan dibadda contribution looga geysan lahaa in barnaamijkan loogu bedelo aynaan oran sida wararkan shaqadiisa qabanaya sida uu qabsaday dadaan uu oran lahaa wana arrin in uu gobolada dhan iyo degmooyinka iyo meel kasta Soomaaliya ka mid ah tago waajibna ku ah wanaagsan oo la soo dhaweynaya geedi adiga ka dareen ahaantaada markii aad eegto madaxweynaha shaqadiisa uu qabanayo iyadoo ogsoona in safarro uu ku bixiyay dalka dibadiisa ay ka mid tahay wadanka Faransiiska haatanna uu goboladii safar uu ku bixinayo hawsha inta la eg oo aan malayn karna inay aad u adag tahay balse madaxweynaha looga fadhiyo inuu deegaano kalena booqdo isla markaana dadku uu kheyro geliyo isla markaana uu kala hadlo waxqabadkiisa iyo wali waxqabadka dawladda iyo sida dawladda ay u jeceshahay in shacabku isku soo dhaweeyaan marka adigu taasi markaad aragto dareenkaada maxaad muujin lahayd caawa oo dadka ku daawanaya iyo anaga barnaamijka soo saarnaba aad inoo muujin lahayd هاي ونشتغل وحن كور وارين أد فرحضوا له وارين لسوقي ويعني شقة أيومدو إن بدن سوقي شيء وحنا نرى لها وحي ونكسنا له إن نقدر إنه أي يعني نقرر صين له لا إسكو حر غير هذا وربلشدن دبعت سنة مدحوينه ومركو بقضي واحد برنامج يسعود يفرر ده هي إن سدا وحلقة يورو بلشدي سدا الله إسكو حره ودي أنت هم بانو متقنا أرنا لهن معهن in madaxweynuhu booqdo iyo wasiirada iyo cid kasto ku shaqale ay bulshadu meel kasto ay taalageed iyo tuulo iyo xaafad iyo degmo meel kasto ay joogto in loogu tagay arin aad muhiim iyo munaasib ah waana soo dhaweynayna geedi aad baad mahadsantahay walaal waan kaaga mahadcelinaynaa waqtiga aad noo soo hurtay iyo ra'yigaada sida aad ku wanaagsan aad noogu soo koobtay aad buu u mahadsan yahay ugu dambeyn qodobka gacanteena kusoo dhacay inagoo timeka aan marayno runtii heer gabagaba ah baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta loo gudbiyay 10 hindis sharciyeed oo ku jiro hindisaha sharciyeedka la dagaalanka argagixisada waan gartay la dagaalanka argagixisada in badan waan maqalnay golaha wasiirada way ka hadleen laamaha amniga
ralliga hada ay kala duwan way ka hadleen bal nuqur kamid ah nooga taabo maxamedow muddo 4 sano kadib markii ugu horeysay maanta waxaa xildhibaanada golaha shacabka loo qeybiyay xisaab xirka miisaaniyadii ay hore u ansixiyeen xildhibaanada iyo dowladda isticmaasho sanadkii tagay 2013 waxaan xisaab xirkan miisaaniyadaasi u gudbiyay baarlamaanka maanta guddiga maaliyadda miisaaniyadda iyo xisaabaadka hay'adaha dowladda kasoo qaybinta xisaab xirkan miisaaniyadda sanadeedkan 2013 xildhibaanada baarlamaanka maanta waxaa loo qeybiyay hindisihii sharciyeedka gaaray 10 waxaana ay kala ahaayeen markaan soo qaadano hindis sharciyeedka xeerka isgaarsiinta qaranka hindis sharciyeedka leesimada ganacsiga iyo warshadaha iyo sidoo kaleeto magacyada iyo sumadaha ganacsiga iyo hindis sharciyeedka dib u eegista sharciga Janaayo 1989 oo lagu dhisay hay'adaha duulista rayidka iyo saadaasha hawada qodobo badan ayaa lagu soo qaatay ee 10kaasi runtii ay ku jireen waxaana laga sugayaa in baarlamaanka ay dib u eegaan qodobadaasi aan sheegnay waa hagaag aad iyo aad baad u mahadsantahay daacad khadka telefoonka ku jira daawade haddii aad maqasho ku soo dhawaab halo assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله magacaaga halka anaga soo wacayso walaal magacay waxa la yiraahdaa Abdullahi Sheekh Xasan Ciro waxaan ka soo wacayaa London Abdullahi ku soo dhawo falaqaynta warka fikirkaagana hore u gal aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaan wariyaasha iyo inta xiriirinaysa iyo inta warka soo timinaysa iyo inta barnaamijka soo qaban qaadisay inta kadib waxaan aad u hambalyeynayay meesha Ilaahay cadawga maanta ka kiciyay magaalada Aalbuur iyo waliba madaxweynaha booqday ma sha Allah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inkastoo aan kasii jeclaan lahaa inaan maqlo madaxweynuhu waa joogaayo wuxuu sugayaa ilaa inta xarar dheerana laga kicinayo marka aad iyo aad baan arrintaas u hambalyeynaya reer Aalbuurna waxaan leeyahay Ilaahay guusha Ilaahay gaarsiiyo maanta allaha u taam yeelo meelo kala badan oo runtii aan islahaa madaxweynuhu maanta waa booqan doonaan way jiraan inkastoo aan warkeeda maqal laakiin kulli wuu u socdaa baladweyne wuu tagay haatan wuu gaaray baladweyne si fiican ayaana loogu soo dhaweeyay wuxuuna waxaan isdhigi karnaa meelo badan way jiri karaan inuu sii maro balse hadda waxaan warka ku haynaa in baladweyne si fiican loogu soo dhaweeyay madaxweynaha ما شاء الله بلدوينه هرنا وتجي هذا وتجي لكن هذا ودن بلدوينه البور كليه معهن سنترال قوة بدنيه هاي نلا بدن وكلا كتير نلا هذا عدو وشوفنا ويشران لكن كهر دع معي كل وان فيها إنه تجي إنه جود أهم تجا وسيلة أنا قدرنا أعرفنا إن مدحوينها جوال والبيت دقمة والبابا وتجا إنه سقوسه قيمة مركز ما شاء الله لكن أنتوا سنترال كتير نلا توحن تعلان لها حرف دارنا إنه كل حكيو سوى طلع من إلى هيك حرية عدو قال ما تعلان لا وأنا محتاج waa gartay Cabdullaahi aad baa u mahadsantahay waxaan iska soo gaarnay runtii gabagaba mar kale ayaad si fiican aan u wada hadli doonaa qodobo badan runtii aad buu u mahadsan yahay Cabdullaahi waa tahay waxaan aan ka xunnahay waxaan soo gaarnay guntii iyo waliba gunaanadkii balse intaan soo gabagabin qodobada bal ugu roona inaan noo dulmarto daa qodobka ah xukuumadda Soomaaliya ayaa qorsheynaysa in shidaalka Soomaaliya ku soo saarto muddo 6 sanadood gudahooda ah iyo wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta oo gaaray dalkan South Korea iyo runtii baarlamaanka Soomaaliya oo maanta loo gudbiyay 10 hindis sharciyeed oo ku jira hindisaha sharciga la dagaalanka argagixisada وتاي مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية أي مانتي وفديو هجامينيا بوقضي مجالدا عيلبور يوليبا مجالدا بلد وينه وككلة ترسم قبل كهيران يوليبا قبل كجلجدود هالكاسو دودوينا أو ترى بدنا يكسو دويين سيدا كله وبيك شبه لا أي كوفة هاي حافظة كميدا مجالدا بلد وينه إسلا وحنكو جد جنا وركاسي جامعة مجالدا مقدشة السمد أي سجال لبعضن أرد جدون سيسي شهادة جامعة سياي كجل جبيان وركاسي أياتكم مقشين فنقين توركا وحنا إدين صو صاري أنا جو محمد عثمان بدار يوليبا عبد الرحمن يوسف داعت أنت برنامج كان برنامج كيس كلام كل مدونا قياري وحنا ذيك جتنا لما أنت يدا SNT في لندن يوليبا جبي هامبا إن عالم كويدلو سكوت دوبن سيداسيو نبل قليل